بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، لله ملك السماوات والأرض. الله وحا أصقنا ليلها أنشاها سموين كي يدلك، والله على كل شيء قدير. إلهي با وحوى البكرة وحبكوا أتكانين لقا واحد كأركيس الضوامها الضعفاء أركتدوا ذو عين كات وحبك السوقين بينه، لكن إله أود الضبضان dhibi iyo dheef bay isagu haya ayaynu wax ka sugaynaa. inna fi khalqi as-samawati wal ard, samooyinka cirka iyo dhulka, abuurka cirka iyo dhulka baa Ilaahay wa ikhtilaafi al-layli wan-nahaar, iyo isweydaarka habeenka iyo maalinta. isweydaarka habeenka iyo maalinta, kana imanaya kana uu tegaya, kana cadaana kanina uu madowya, kana dayax buu leeyahay kana qorax buu leeyahay, kana gaabanaya kana uu dheeraanaya. kullu dalik وتفسير اختلاف كلي لآيات أستاموين باوغسوغا لأولي الألباب. عدة عقل عليه، عدة قرات كودا إيه مستواه دو صريو. آيات كإلهي وحوين باوغسوغا يكفهم كرام دا إلهي. عالم خاص اسبت بدل أياب كبضل إنا عيد كالنودين إساقنا آنو إسودين طبيعة نودين، لكن إله خالق وحكيمة أيا وضع. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. مركز صفوين كي أولو الألباب كنا واقوا صوص على لأننا نروحوا لي عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وحهلاك لقفك أخرية عن لغنين معنه ذي عن كفكر الآيات. أولو الألباب هو صفداله، ma kuwa falsafada yaqaana, ma kuwa iyagu isqanciyay iyaga oo aan aqoon lahayn oo aan dheergarad ahayn ba, waa kuwa tilmaamahan leh. alladina waa kuwii ulul albaabku yadkuruuna allaha, ilaahay bay xusayaan qiyaaman wa qucuudan, iyagoo taagan iyo iyagoo fadhiya, wa calaa junuubihim iyo iyagoo dhinaca u jiifa. intaba ilaahay way xusaan. waxay taasi tilmaamaysaa cibaadada hadday sarajoog ku kari waayaan way la fadhiistaan, hadday fadhiga ku kari waayeenna way la jiifsadaan. jiifka dee qofku meel uu sii dhaafayaa ma jirto, ilaan halkuu sii dhaafo jiifka waa geeri uune. waana siduu cimraan ibnu xuseyn nabigu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam salaad. waxa kaloo aayaddu ay caddaynaysaa yadkuruuna allaha calaa kulli axyaanihim aw axwaalihim, xaalad kastay ku sugayn ilaahayba way xusaan, ama ha taagnaadeen ama ha fadhiyeen ama ha jiifeen. wayatafakkaruuna waxa ay ka fikirayaan fii khalqi asamaawaati waalard, cir iyo dhul abuurkood. intay kor u eegaan habeenkii ay dabadda u baxaan ayay ka fikirayaan. rabbanaa bay leeyihin ilaahayagiyow maa khalaqta haadaa baatilan, kan xikmad darre ilaahay kumaad abuurin caalamkan cajaa'ibka leh. subxaanak, ilaahay adaa ka hufan inaad xikmad beesho. faqinaa cadaaba annaar, naarta cadaabkeeda ilaahayow naga nabadgeli bay ku ducaystaan awliyada ilaahay, rag iyo dumarba mu'miniintu. rabbanaa bay leeyihin. ereyga rabbanaa oo soo noqnoqonaya 5 jeer wuxuu tusinayaa isdhuldhigga addoonku uu aada ilaahay isugu dhuldhigayo, u tawaaducayo, ee uu addoonnimada ilaa heer muujisanayo. rabbanaa inaka adigu ilaahayow man tudkhili innaara faqad akhzaytah, ilaahay qofka aada naar geliso waa dullaysay. wamaa lilaalimiina, dulmi falayaasha uma sugnaanin min ansaar, cid u hiilisa oo iskarab taagta dulmi falayaasha ma leh kol haddii ilaahay haysto. rabbanaa yaa rabbanaa bay leeyihin ilaahayagiyow inanaa samicnaa waxaanu maqalay anagu munaadiyan rasuul yeeraya, yunaadi liliimaan, yunaadi annaasa ila aliimaan, dadka iimaanku ugu baaqaya rasuulkaas. an aaminuu birabbikum, waxa uu leeyahay rumeeya ilaahiina. fa aamanaa, waanu rumayn. ducaadda khayrka ku baaqaya ee rususha dhaxlay ee wanaagga faraya dadka, iyaguna halkii rusushun bay u taagan yihin, oo kii aan rasuulka maqalna kuwaasu maqlay. rabbanaa bay leeyihin ilaahayagiyow fakfir lanaa dunuubanaa, ilaahow gafafka yaga dhaaf. wakafir cannaa sayi'aatinaa, dembiga yaga naga astur. watawafanaa maca alabraar, ilaahayow na raaci, kollay geeri baanu ku xukumanahaye kuwa samafalayaasha ah. ilaahu rafiiq baanu u baahannahaye rafiiqa wanaagsan ilaahu na raaci. saasay ku ducaysanayaan. rabbanaa yaa rabbanaa bay leeyihin ilaahayagiyow wa aatinaa, alla waxaadna siisaa maa wacadtanaa, shaygii aada noo yaboohday, calaa rusulik ay calaa alsinati rusulik, rusushaada carabadooda. rusushaadu waxay afkooda nooga sheegeen
khayr aad iyo aad u fara badan oo janno leh oo abaalmari wanaagsan leh ilaahu kaa nasiib walaa tukhzinaa yowma alqiyaama ilaahu maalinkaa hana hoojinin ilaahu hana hoojinin bay leeyihin maalinkaa qofka hoogaa horumar wuu ka dhintay laakiin adduunyada qofka wixii soo maraya isaga ibtilaa iyo imtixaan baa ilaahay uu ku tilmaamay haddii uu ka nasto aanu dib xusuusanayn innaka laa tukhlifu lmiicaad ilaahay oo ballanta kama baxdid adugu waa run ilaahay kama baxa addoomaha ballanta u qaado laakiin haddii la waayo wax ay addoomuhu sugayeen mushkiladdu waa iyaga laakiin ilaahay xaggiisa maaha iyagaa ballantii ka baxay ilaa waxay ahayd in tansuru llaha yansurkum walaa yansuranna allahu man yansuruh ilaahay qofka u hiiliya ayuu hiilinayaa diintiisa dadkiisa awliyadiisa rusushiisa hilimaad bay u baahan yihin marka hilimaadkaa lagaa sugaya haddaad fidiso waad heli haddii kalena maya ilaahay waxau ihi fastajaaba lahum waa u aqbalay rabbuhum ilaahoodu wuu aqbalay ducadooda marka adabta ducadaad aayaadka ka faa'idaysatay ammaan baa ka horeysa qalbi xaadiraa ka horeeya ereygaa wanaagsane rabbanaa oo la soo celceliyaa ugu horeeya tawaaduc iyo isdhuldhig iyo daciifnimada addoonnimo aada muujisato ayaa ka horeeya ducada markaasaa dabeedna wixii aad ilaahay weydiisanayso oo u badan dembi dhaaf oo u badan badbaado aakhiro ayaad ilaahay weydiisanaysa adiga oo mar walba walaalahaaga muuminiintaana ku daraya oo hamigaagu weyn yahay fastajaaba lahum rabbuhum ilaahoodu ducadaa uu aqbalay annii biannii baa ilahay uhi anigu laa udiicu lumin maayo camala caamilin mid camal qabtay camalkiisa lumin maayo kaasoo minkum idinka mida ilmo bani aadam haddii atiin min dakarin lab aw unhaa dhadig lab iyo dhadig midkuu doonayo qofkani ha ahaado alla wuu sababeeye wuxuu uhi bacdukum min bacdi barkiin kuwa kalunbuu ka yimo rag iyo dumar haddaad tihiin waa isdhasheenuun lianna annisaaa shaqaa'iqu rijaal oo dee dumarkiina waa kuwo raggii un laga jeexo raggiina dumarkii baa dhalay dumarkiina raggii bay dhaleen saasay u yihiin dad wada socda ilaahay hortiisana xagga camalfalka iyo abaalka way u siman yihiin ilaahay way u siman yihiin addoomuhu rag iyo dumara waxay aayaddu ku bayaamisay ducadan inaan dadku kala xigin laakiin rag iyo dumarba ay ku ducaysanayaan fiiradan iyo dadaalkan iyo fikirkan rag iyo dumarba ay wada leeyihiin saasaa nasku u simay amaama allahi dadku inay siman yihiin